marka waa guda galaynaa mawduucayna maaragtay waxaan rabay inaan ku bilaabo horta marka hore aan kaaga mahad celiyo cabdicasiis oo guda cadde maaragtay oo runtii ah qoraa iyo maaragtay arday ama maaragta hadda baranaya maadada cilmi nafsi ka baranaya jaamacadda maaragta Kenyatta University kana baranaya maaragtay qaybta counselinka oo ardayna keliya aan ahayn ah qof ku takhasusay digrigiisa koowaad ku qaatay psychology-ga iyo aniga waxaan jeclaystay inaan ka hadalno mawduuc maaragtay aad iyo aad maaragtay labadeennaba aan ugu dhiskaas garayna muddo badan mawduucaas oo ah waxa la xiriira empathy-ga ama maaragtay waxa la collective empathy oon qeexi doono asalka dhibaataduna waxay ahayd dabcan maaragtay inaan iska weydiino su'aalo cabdicasiis baa wuxuu isoo diray dhowr jeer maaragtay qoraallo ku saabsan dhibaatooyinka runtii soo noqnoqday ee dhowaanahan social media lagu arko oo ah in dad badan ay aad u sheergareeyaan dad badan oo soomaaliyeed oo meydadkoodii ama la dilay ama weliba qof meyd u yaallo in lagu qoslo ama lagu maaragtay wiirsado weliba degaano kala duwan meelaha soomaalida ay dhigantao dhannood oo degaan keliya aan ahayn marka waxaan is weydiinay why ay u jirtaa maaragtay dhibaatadan iyo maaragtay inaan iska weydiino bal annagoo adeegsanayna mawduucan maaragtay cilmi nafsiga iyo cilmiga bulshadaba inaan is weydiino maxay ku imaan kartaa empathy la'aanta iyo maaragtay kulli arxan buu noqon karaa wuxuu noqon karaa in maaragtay dadku ay isku arxamaan ama dareen wadaag ay noqdaan oo kale marka mawduucaasaan hordhac ahaan rabay inaan u sheego waxaan marka kusoo dhaweynaya cabdicasiis oo balans weydiinayna awdgoo cadde inuu noo sharaxo contextiga maaragtay mawduucan kulley wuxuu noqon doonaa wada sheekeysi wareysi ma noqon doono gaara sheekada meesha nala gashan waa arki doonaa iyo habka maaragtay ugu dhac wada sheekeysigeena dabcan marka soo dhawo cabdicasiis waxaan jeclaan lahaa marka inaad maaragtay bal noo guda gashid contextiga iyo qaabka ku bilowday doodeena ama wada sheekeysigeena waad mahadsan tahay cabdilaahi aad iyo aad waad mahadsan tahay adkayga si fiican markii soo gaaraya rajaynaya si fiican waad mahadsan tahay waxaan dareemay maalmaha u dambeeyey sidaa sheegtay waxaan soo badanayay si ka badan sidii hore aad moodaa inay isoo tarayaan dhacdooyin muujinaya eh, wax lagu sheegi karo wiirsi ama maaragtay udamaqasho la'aan cid kale markaa tusaale ahaan deegaanada qaar ayaa waxaa ka dhici kara fal arxan dara ah oo qof la dilay ama ha disho dowlad ee goobtaa joogta ama shicib kale ha dilo ama burcad ha disho ama cid soo abaabusho ha disho qof la dilay ama koox dad ahoo la dilay oo weliba loo dilay si ka baxsan caadiga inkastoo si caadi oo dadka loo dilaa aanay jirin haddana sidii la arki jiray ka baxsan oo tusaale ahaan qof la gubay ama la torture gareeyey markii la dilayey ama la kufsaday markii la dilayey dhacdooyinka markaynu aragno dadku waxay u soo wadaagaan dadka qaarkood maaha dadka oo dhane in kamid waxay usoo wadaagaan qaab u eeg inay ku maadsanayaan oo tusaale ahaan in dadku ay xasuustaan waxyaabo kale oo kamid yihiin dhibanaha qabiilkiisa ama deegaanka lagaga maadsado la yidhaahdo reer hebel waxaasay bilaabeen ama wax la halmaala oo la yareeyo culayskii ay lahayd dhacdadu dhanka kale waxaa dhacda dad mudaharaadaya sidii ka dhacday boorama somaliland sidii ka dhacday horaantii bishan December dad mudaharaadaya oo dadna dowladda ahina ilaalisaa ay rasaas ku furtay kadibna dad ku dhinteen halkaa khasaar ka soo gaadhay iyadoo meydkaasi yaallo oo hawshaa culus taallo in deegaano kale oo isla Somaliland ah dad dega oo dhalinyaro u badan oo waliba laga yaabo inay mutacallim yihiin inay soo qoraan way kibrayaan ama way mutaysteen ama wax la halmaala dhirbaaxadaasi hadday ku dhici lahayd jaarka ama xaafadda uu degan yahay qofkaasina uu sidaas si ka duwan uga falcelin lahaa marka talow maxaa sababay marka maxaa sababay in muuqaalo laga duubo trophy video u eg qofkii qof dilaya ama meyd madaxa kaga taagan ama la gubayo maxaa keenay in xildhibaan ka tirsan federaalku uu yidhaahdo qofkii la gubay ma uu waalnayna uu miir qabay sidii taasi ay fududeynayso dembiga dhacay marka waxyaabahaas maxaa sababa in qofku isagu marka gardaradu ay ku dhacdona uu ka damqado marka cid kale ay ku dhacaysana oo isla Soomaalidii ah oo isla deegaankii ah oo isla Somaliland ah oo isla Puntland ah oo isla koonfurta inteedii kale oo isla deegaanka Soomaalida ah maaha wax qof qalaad maaha maxaa keenay dhanka kale maxaa keenay inaynu kala xulanno dhacdooyinka caalamka ka dhacaya oo qofku uu qasas si gaara uga gubto laakiin
caruurta Ukraine lagu leynayo ama Congo lagu leynayo aan dareeminba. Halkaas bay horta fadhidaa doodeenu, marka halkaas baynu ka amba qaadaynaa. Waayo markaa waxaynu rabnaa, waxaan kusoo casuumayaa Cabdilaahi, bal inaynu qeexno horta si aynu isula garano waxaynu ka hadlayno. Waa maxay horta empathy ama waa maxay arxanku? Marka dhinacyo kala duwan laga eego muxuu yahay, si aynu u fahanno la-aantiina marka maxay tahay la-aantiisa iyo maxaa keenay. cabdicasiis aad baa u macsantay horta si fiican baa u sharaxday maaragtay oo runtii problemka maanta na haysta oo soomaalida haysta oo runtii maaragtay inta badan aan lagu baraarugsanayn oo ah in uu lumay dareen wadaagii inuu lumay maaragtay arxan wadaagii inuu lumay saa sheegtay marka inta badan waxaan rabaa marka inaan guda gala maaragtay inaan bal qeexno horta muxuu yahay empathigu inta badan marka laba u kala saarayna empathigu marka ereyga ugu dhow waxa weeyaan waa inaad dareen maaragtay dareenka dadka kale inaad fahmi kartid weliba aad fahmi kartid meeshuu ka imaanayo dareenkaas macnaha dhibaatada qofka kale uu qabo inaad dareentid marka waxaa jira waxa yidhaha compassion wuxuu noqon karaa waa empathygii waa naxariistii iyo arxankii oo noqonaya inaad dareenna uu jiro oo empathygina uu jiro sidoo kalena ay jirto rabitaan inaad dhibaatada qofkaas uu dareemay aad ka yaraysid maaragti marka laba qof bay noqon waxaa jira inaad dhibaato dadka la wadaagtid dadka waa biniaadamku waxyaalaha uu maaragti noolaha kale uu kaga duuya inta badan inkastoo caddeyn aan u helin oo noolaha kale ayagayna la xiriirin laakiin aan inta qiyaas karno waxa weeyaan inaan dareemi karno dhibaatada qofka kale dadkuna ay ku kala duwan yihiin oo qofba heer u joogto marka empathygu waxa weeyaan waan saan sheegay marka labadaas ayaan horta ku qeexi lahaa midda kale waxaa jira waxaa marka collective empathy oo ah marka bulsho meel ku wada nool ay si guud ugu heshiiso macnaha ay dhaqankooda ayagoo eegaya maaragtay culturekooda iyo diintooda waxyaalaha dadkaas dhibaatada u ah oo xanuunka u ah tusaalahaan kale colaadahoo kale abaarahoo kale dilkoo kale maaragtay kadibna ay mujtamacaas ay yeeshaan qorshe ama action ama ficil waxaas looga hortagay si collective ah haddii meel wax ka dhacaan kale in loo gurmado oo kale haddii meel wax ka dhacaan inaan lagu wiirsan saa sheegto oo kale marka inta badan marka waxyaalaha cajiibka waxa weye biniaadamku uu kaga duwan yahay sida maaragta aad aragtay hadda dhibaatada u sheegto waxa weeyaan in ay empathygu markay noqoto collective si guud markay noqoto ay noqoto qaab selective ah oo xulasho ah oo marna dadka qaarna aad empathy u dareemaysid oo aad maarkin oo dhibaatada la dareemayso la damqanaysid oo aad la gubanaysid qaarna aan dan ka lahayn oo aan kala jeclayn kale maxay u timaadaa badanaa marka su-aasha la isweydiiyaa inta badan marka waxaa jira cilmigan social psychology-ga ayaa aad u sharaxa inta badan oo dhaha maarata waxaa jira social identity theory waxa la yidhaahdo oo ah dadku inta badan marka ay dareemayaan maaragtay dhibaato ama ay marka ay dareemayaan halis oo kale ay dareemayaan waxay isku qeybiyaan inta badan dadka annaga iyo ayaga inta badan marka empathygu inta badan wuxuu raacaa oo maarkino dadku waxay daraa in group maarkino ama in the group maaragtay in group gudihiisa empathy ay dareemaan dadka kalena aysan xanuun la dareemin taa marka waa mid biniaadamku kaga du maarkino u samaysto marka waa social construct waxay noqonaysaa dareenkii biniaadamka uu ku dhashay oo qaab bulsho ahaan loo qeexo yidhaahdo annaga ayaga oo kale waxaa jiri kara waxa yidhahda moral exclusion ama dadka qaar oo kale inay dareemaan dadkaas dhibaatoonaya inaan u gurmano maaragtay sax ma aha inaan dhibaatadooda ay ku dhacdana waaba sax bay ahayd way u qalmeen saa sheegdaayat waxaa tira dad baa waxaa u qalmaan dhibaatadaas in ku dhacdo way mutaysteen oo kale saa kale haddana marka biniaadamku wuxuu sameeyaa maarkin iyo in badan inta badan in they deserve saan sheega u qalmaan oo kale iyo normiska dadka marka la fiirsho inta badan empathygu qaabkaas ayuu maaragtay ayuu inta badan loo qeexaa marka la fiirsho social laakiin dareenka shakhsiga ah waa wax dabiici ilaahay uu ku abuuray qofka qof walba marka ku dhasho haddii uu helo barbaarin wanaagsan haddii uu helana barbaarin xunna laga dili karo oo sida maaragtay dhaqankeena qaar badan oo laga yaabo waxyaala badan oo qabiilkaaga haddii dhibaata gaarto kalina u damqatid laakiin qabiilada kale colaadaan ka dhexeyn u damqanin dadka deriska dowladaha deriska colaadaan ka dhexeen inaad tiraahdo kale waa in la laayo xaq bay u leeyihiin annaga inaan badbaadino marka waa wax biniaadamku inta badan social construct noqon kara inta badan marka adaan kugu soo wareejin lahaa waxaan rasweydiin lahayn marka soomaalida markaa eegtid marka theorygaas guud oo social markino psychologyga marka la fiiriso iyo mawduuca hadda aad sheegtay iyo sidaa u eegtay qaabka anaga ula falgalno qaabka anaga u samaysano empathyga
bal inaan wax ka tiraahdid, bal inaan isla fiirin oo kale. Okay, empathiga waan faahanay. Compassion mararka qaar oo kale waa jira, war isku arxamayo dee dhibaata dhacda kale ugu dhumid baa jira. Laakiin inay noqonin wax inaysan noqonin wax joogta. Tusaalahaan oo kale, dhibaatadaas dhacday, qof walbaa ku dhacda dhibaatadaas in loo gurmado. Soomaalida kama jirto, waxaa ka jirta dhibaatada markay dhacdo in dadka qaarna loo gurmado, dadka qaarna aan loo gurmado. Dadka awoodda leh dhibaatada markay ku dhacdo inay ka duwan dadka masaakiinta markay dhibaatada ku dhacdo oo kale. Marka qaabka sidoo eegaya bal mujtamaca Soomaalida iyo mawduuca maadaama adiga aad ugu fiirsato oo kale, bal maaragtay qaabka ay ula falgalaan inaan guda galno kadibna aan fiirino. aad iyo aad cabdi waad mahadsan tahay si kooban oo kaalingalabad u qeexday waxaan ku dari lahaa waxaa jira mar saynu u fahanno waxaa jira mar dadku qodob ka mida qodobada kobciya arxanka ama empathiga waxaa jira wax lagu dhasho oo wax la yidhahdo mirror neuron ayaa jira tusaale ahaan oo ah maaragtay markaan wada joogno haddaad wejigaaga aan ka dareemayo murugo si dabiiciya almost aad moodo in qofku ay ku abuuran tahay ayaa wejigeeduna uu la falgelaya wejigaaga murugoonaya marka war dhafar buu ku yaalaa marka Soomaalidu leedahay waxay tilmaamaysaa in arxan dabiici jiro oo qofka marka saa u aragtid aad akhrisan kartid marka qofku wuu ku dhalan karaa wax ka mid ah laakiin inta ugu weyn oo waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan sida taasay qofka waa lagu ababin karaa oo waa la bari karaa arxan guud oo dadka oo dhan insaanka oo dhan noolayaasha oo dhan koonka oo dhan oo aan noolayaasha kaliya ahayn sidoo kalena waa laga jari karaa oo waa laga burburin karaa arxankaas dabiiciga ah ay ahayd in la kobciyo la koriyo marka taasi waa qodob aan ka dabageynayay Soomaali ahaan markaynu inagu dhaqankeena guud si u eegno inkastoo ay jiraan dhaqan hoosaadyo Soomaalidu ku kala duwan tahay laakiin haddana waxaa jira wax guud oo ay wadaagto waxa marka la joogo arxanka ama sida qofka Soomaaliga ah ee yar ee dhashay ee barbaaraya sidee loogu ababiyaa ama aan loogu ababin arxan markaynu dhigahno waxaa jira faham weyn faham bixin iyo concept weyn oo la yidhahdo sokeeye iyo shisheeye Soomaaliga dhexdiisa oo qofku marka uu joogo miyiga aad ku dhalatay anigu hawdkan ku dhashay adigu reer miyig baa tahay reer mudug yani reer mudug miya laakiin waa kaga dhowaa reer mudug sax weeye qofka meel buu ka yimi marka meelahan ka nimi waxaa jira dhaqan baa jira ay ka siman yihiin weliba raacatada iyo ilaa heer inta laga qoray ama loo fiirsaday ama maansada Soomaaliga ama mahayad ku jira marka waxa sokeeyo muxuu yahay sokeeyo waxa weeyaan inaga sidaas waa inaga reer hebel ah inaga deegaankana horta inaga qoyskan ah inaga deegaankana ama degmadan ah inaga reer hebel ah marka shisheeyuhuna waa qabiil kale ayuu ka bilaabmaa waayo Soomaalidu lama socon cadaanku ilaa uu noo yimi oo soo gardaraystay maynaan arag carabku ilaa ganacsiga naga dhex maray iyo diin maynaan arki jirin shiinaha ilaa iyo ganacsiga waxayna soo dhex maray maynaan arki jirin laakiin Soomaalidu qofka ugu weyn inta ugu badan wuxuu arkaa qof qabiil kale ah ama qof qabiilkiisa ah marka waa qof Soomaali ahayn marka halkaas horta sokeeye iyo shisheeye ka jira marka arxankeenu waa labaalay baan oran karnaa waa dichotomous uu kala dhambalan yahay oo inaga iyo iyaga ayuu caad iyo toos ugu salaysan yahay laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo magan Soomaalidu maganta way bixisaa dhaqankeedii hore wuxuu ahaa maganta in la bixiyo marka maganta waxay noqon kartaa shisheeye sokeeye cid sokeeye meel degan yimi dabadeetana u yimid oo kana ka codsaday inay bixiyaan oo badbaadiyaan magantaas ciday doontaa ha ahaatee dhaqanku wuxuu dhiiri gelinayay oo boorinayay inkastoo jireen mararka qaar in la khilaafo sida xeerarka badankooda marmar badan loo jeediyo in maganta la bixiyo oo aan marka maganta hadday dhibaato ku dhacdo waa lala arxamaya sokeeyahana sokeeyaha maxaa loo tari jiray waxaa loo tari jiray in hadduu gurigu gubto si weyn loogu soo gurmado oo alaab loo geeyo waan xasuustaa burcaan wax xaafad noo dhaweeyay gubatay busto aan jeclaayo aan ahaaba ayaa kamid ahaa alaabta la siiyey xaafadayda laga qaaday waayo sokeeye ahayd qoyska guriga ka gubtay sidaas markay tahay waxaan isleeyahay dhaqankaasi wuxuu abuuraa bulsho ahaan markaynu eegno bulsho ahaan dhaqankaasi wuxuu abuuraa qofku inuu arxamo qofka Soomaaliga ahi laakiin arxankiisu xad leeyahay wajina leeyahay mararka qaar ay ka horeyso haybsasho maaragtay waxaad moodaa inuu yahay inuu abuurayo dhaqan ah aan kuu damqadee yaa tahay maaragtay dhaqan u eg taasi waa markaa keenaysa marka la ballaariyo deegaanada Soomaalida laga baxo
in la yidhaahdo gaalay ahaayeen way mutaysteen, maxaa la yidhahdaa waxay ahaayeen soomaalida maaha maxaa naga galay. kolka eh, oday abtigeeda maalin wuxuu u sheegay in Rwanda iyo Uganda xagteeda askar isa soo dhowdaan laga yaabo in dagaal ka dhacay 2019 ahayd. dadna wuxuu igu yidhi ilaahay ha kala qaboojiyo, inkastoo aynaan oranayn dee inaan cid ka garanayna adoon nin reer hebelaa ku dhintay ina hebelaa ku dhintay dagaalkaas. dadna uu istaliyo markaasuu yidhi inkast haddana iyo kolleyba qof kastaa cid unbu ina hebel u yahay. marka arxankaas caalamiga ah ama maarata in oran karno waa ballaaran yahay, oo fahamsan qof kastaa qof buu ina hebel u yahay, oo 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 la damqanayo oo ka murugoonayo haddii wax soo gaaraan ama haddii isagu soo gaaro aad dareemi kartaan. waa waa mid aad moodo in uu barbaarinta ama waxbarashada dhaqanka Soomaaliga uu aad ugu yar yahay. marka dhankaagan kusoo wareejinaya hadda taa ku daraysid iyo aad iyo aad hahe. si fiican baa u qeexday runtii. waxaa macnaha theory-ga aan daaya aan sheegayo ahaa social identity theory-ga, oo marka la fiirsho cilmiga social psychology-ga iyo qaabka u qeexday Soomaalidu, qaabka ay social structure-kooda ay u isticmaalaan, ama qaab dhismeedka bulshada Soomaalida marka qabiilka noqoto, shisheeyaha iyo sokeeyaha oo kale saa u sheegtay oo kale, maganta in la badbaadiyo, in marka ay mujtamac walbo markii la fiirsho meel degan oo collective empathy-gaas u qeexo hab dhismeedkooda u gaarka ah ama diintooda u gaarka ah ama waxa u gaarka inay ku saleeyaan damqashada iyo arxanka ay maaragtay ay muujinayaan oo kale. marka waxaan rabnaa su-aal kale inaan u guda galno waqtiga anagoo ilaalinayna, kule waxaan haysanaa 20 minute oo kale umaleynaya. waxaan inaan fiirino maaragtay dhibaatadii Soomaaliya ama guud ahaan deegaanada Soomaaliya ay degan yihiin ama geeska Afrika ka dhaco kale, dhibaatadii ka dhacday iyo saameynta ay ku yeelatay arrintaas maaragtay. dabcan kadibna aan guda galno maaragtay qaabkii qofku uu maaragtay u muujin karaa individual level iyo collective level, qaab noocaas oo kale aan kusoo gabagabeyno. marka waxaa jirta maahmaah maalmood ay la wadaagtay oo runtii very interesting inaad ku dari lahayd, oo nin odaya uu kuu sheegay maaqa inaa xasuusatid, oo ku saabsanayd qaabka gardarrada oo kale Soomaalida markay noqoto. anaa maskaxda ka baxay markaa maalin waa sheekaysanayna kale. waxaa ii sheegtay Soomaalidu inay gardarrada markay noqoto kale inay siyaalo kala duwan. anoo raba inaan discussions aan ku xiro maaragtay qofka Soomaaliga sababta uu u damqado marka dhibaatada kaliis ku dhacdo ama ay dadkiisa ku dhacdo, uusan dhibaatadaas maaragtay uusan hore uga fekerin. waxaa arkaysaa oo kale siyaasi ka hadlaya dhibaato uu asaga qayb ka ahaa ama uu goobjoog u ahaa oo dad kale ku dhacaysay oo uusan ka hadlin waqtigaas, ama qof hogaamiye bulsho ah ama hogaamiye dhaqameed ama qof maaragtay aqoon-yahan ah. waxaa arkaysaa marka dhibaato ku dhacdo dadkii deegaanka ku yimid keliya ka hadlaya, inta kale laakiin ka aamusan. ma fahanti hadhowtina marka asaga ku dhacdo laakiin ka soo qaaday in dhibaatada markii ugu horreysay dhacdo oo kale ay tahay. maalin waxaan arkay nin siyaasi ah oo ka hadlaya maaragtay dhibaato asaga soo gaartay shakhsiyan iyo ganacsigiisa soo gaartay, laakiin xilli uu xilliga waxaa jirta xil hayay oo dhibaatadaas mid la mida iyo maamulka ka tirsan asaga ay geysteen. marka in la isweydiiyo qofka Soomaaliga goormuu dareemaa, goormuu maaragtay damqashada iyo xanuunkan uu ka baqa uu sheeganaya uu dareemaa, goormuu dadka kale kale ula dareemi waayo. adoo mahmaahdiga ay sheegayso ku xiraya oo ninka odaga ay hahe ma waa sax, waad mahadsan tahay. waad ku mahadsan tahay inaad xasuusisay. maxamed aadan ciiraane ayaa soo qoray hadalkaas oo wuxuu lahaa gardarradu waxay leedahay weji foolxun iyo daba qurux badan. marka hadalka lasoo koobo, marka hadalka markaad ereygaa sawiratid waxa weeyaan markay kaa sii socoto gardarradu adigu aad samaynaysid ama ay cid kale ku socoto, adigu dad tuyaan samaynba laakiin adiga ay kaa sii socoto oo adigu aadan ahayn cidda qaabilaysa ama ay ku dhacayso gardarrada iyo dhibaatada, waxaad moodaa in qofka uu ku raaxaysanayo ama ugu yaraan aanu dhibsanayn. arxankuna wuxuu ina baraa in iska daa noolaha iyo qofka jira ee halkan ay soo taageen, markaad suugaan sheeko akhriyaysid kasoo qaad novel akhriyaysid ama film aad daawanaysid wuxuu ina baraa arxanku meel fog ma jiro. waxa weeyaan waa ka ina dareensiiya inaynu jilaaga film ama sheeko xaqiiq ahaan aanu jirin inaynu la murugoonno, la qosolno, la yaabno, ka xumaano, ka faraxno iyo wixii la halmaano. kiiba haddaba marka uu kaa sii socdo waa qaabka Soomaaligu si yaroo maadaysiga usoo koobay qofka Soomaaliga uu matalo arxanka. markay kugu soo socoto laakiin adiga afka gacanta gelinaya
marka imika tusaale waxyaabaha dhaca waxaa ka mid ah dhacdooyinka taariikhda ah dhibaatooyinkeena soo maray oo dagaaladii sokeeye ka mid yihiin ay ka mid yihiin maamul xumada iyo dowlad xumada soomaalida ku habsatay eh, waxyaabahaas oo dhan markaad u fiirsatay inta badan dadka gacanta ku lihi lugta ku leh qaybta ka ahi way marka uu midi samaynayo xilka joogo ka kale ee banaanka joogaa markaas buu gardarada si fiican u yaqaana oo u qeexi karaya oo oran kara dadka waa la xidhayaa xabsi baa lagu gurayaa waa saxafiyiintii baa la xidhayaa waa la dilayaa dadkii waa kan waa keer ganacsatadii baa la beegsanaya balse hase yeeshee marka uu xilkii tago ama uu tago goob wax lagaga qaban karayo waxaad muddaa kiiba ma aha marka waxay noqotay wax iska caadi waa lagu maadsadaa waxa la yidhahdaa waxaa jirtay hees odhan jirtay madool yaqaani jiray odhan jirtay maaragtay yuusuf alaa la sameeyey la yidhahdo odhan jirtay eh, dulmi doono dulmi diidaan aragnay dulmi diidow dulmi doon ha isku noqon yani kii shalay mid dulmi dooni jiray oo ka toobad keenay waa wax caadi ah laakiin mid diidi jiray isagu oo maanta ku camal falaya dulmiga ayay heestu dad ka waaninaysa marka taasi waa qodob aad iyo aad u muhiimsan oo waxaad moodaa waxaa jiray gaariye maase uu lahaa ergo loo joogo 19 ayuu wuxuu ku daray isagoo nin kale abwaana ku halqabsanay wuxuu yidhi gadhlow awr kala guurtay la arkeen mar kaleeto inay ool ku kulmaan haddii uur kala guuro isagoo umuur culus ma aha aad iyo aad marka uur kala guurkaas baad moodaa inuu yahay oo aynu rabno dabcan waxaan rabaa qodobkeena kalena inaynu ku xidhno toroomada iyo dagaalada sokeeye wixii laga dhaxlay iyo bal inay taasi waxbarashadeena waxbarashadeena iyo warbaahinteena iyo siyaasadeennaba oo hase intaas markay noqoto toroomadeena oo taariikhdeena ah warbaahinteena waxbarashadeena iyo siyaasadeena afartaa dhinac ayaynu ka eegi karnaa markaynu leenahay waxa dhacay waxaynu ku tilmaami karayna maaragtay empathy fatigue oo moodo inuu inaga daalay arxankii baa inaga daalay moodisa marka uurkaa kala guuray oo gaariga sheegayey ka daran awrta kala guurta marunbay meel isaga soo horbixi karaan ama ceel isugu iman karaan marka taas baa inoo taala baan u malaynayaayo aad iyo aad oo aynu ku xidhi karnaa ha aad iyo aad aad koley maaragtay si fiican aad runtii u sharaxday ayaa aad baan uga helay maaragtay oraahda ciiraal inaa soo maaragtay soo xigata maalmood markaa iga sheekeynayso maskaxdayda ka baxda laakiin hadda waxaa moodaa inaad ereygaa irka uu ciiraal soo qoray inuu soo koobayo habdhaqanka guud ee siyaasiyiinteenna iyo dadka hogaamiyaasha noo ah oo runtii haddii fahmi lahaayeen collective empathyga muhiimadda uu leeyahay tusaale ahaan in dhibaata markay dhacdo ciday rabtaa ku dhacda dhibaatadaas regardless qof soomaaliya qof biniaadan ah dhibaatadaas in laga hadlo hadhowta beri waxaa imaan lahayd in credibilityga wax la yidhaahdo shaksiga qofka maaragtay in loo qaato qof integrity leh oo shaksiyad leh wuxuuna u ekaan lahaa markuu dhibaato kasta ka hadlo dhibaatadaasoo runtii ama asaga ku dhacdo dadkiisa ku dhacdo ama dad kale ku dhacdo biniaadamkii kale ku dhacay inuu ka hadlo marka taa marka si fiican aa u qeexday kolley gabayadiina waa ku xirtay iyo maaragtay dhaqankii dabcan aad baa u daraasaysaa dhinacaas oo qoraa weyn oo waxaa tahay wax badan runtii arrimahan aad ugu eegay marka waxaa rabay inaan guda galo dhibaatadii dhacda marka la eego wax ugu weyn oo dadku ku dhacay soomaalida aniga markaan fiirsho as a clinician waxa weeyaan waa lack of trust macnaha waxaa meesha ka baxday is-aaminaadii inta badan marka is-aaminaadu meesha ka baxdo waxaa yaraada wax la yidhaahdo public empathyga ama muujinta dareenka guud tusaale ahaan haddii aniga oo aqoon-yahan oo kale ah oo aan ka hadlo dhibaato ku dhacday qabiil kale ama deegaan kale oo qabiilkayga ishayaan waxaa noqonayaa qof galay dembi ama markanu galay maarata khiyaano oo kale qabiilkiisa khiyaano oo kale sida daraaddeed marka dad badan oo runtii ayagoo ka baqaya is-aaminaad la-aanta qabaa'ilka ka dhex jira iyo dhibaatooyinka deegaanada ka jira oo kale inaad muujinin empathyga ama collective empathyga ama dareen wadaagaas guud aadan muujinin because adoo ka baqaya falcelinta kaaga imaanaysa qabiilkaaga oo kale so marka waxaa imaan karoo marka waxa social punishment tusaalahan kale siyaasi baa tahay deegaan ba kasoo jeedaa deegaankaaga deegaan kala asaxaya marka hadda daayar waxaa sheegtay shisheeyadii sokeeye waxaan ku sheegnay annagii ayaga ayaan ku sheegnay marka dagaalka intuu ka socdo ama dad badan waxaa jira siyaasiyiin oo lagu ceebayo yidhaahdo waxay qabiiladooda ama qabiilada kale la jiraan ama qabiilada kale la sifan yihiin oo kale marka arrintaas sabab lack of trustigaas ayaa qayb ka ah
inta badan clan conflictigana wuxuu keenaa wax yidhaahdo markan dadku inay kala qaybsamaan oo tusaale ahaan shisheeyaha iyo sokeeyuhu uusan lahayn xataa wax xada dad badan oo waxaa jira aqoon-yahanada ku dooda haddii soomaalida ku ekaan lahayn qabaa'ilka waaweyn ay u qaybsamaan oo aysan hoos usii degdegi lahayn oo kale waxyaalo badan xallismi lahaa tusaale hadaad adig u arxami lahayd ama aad dareen wadaag la noqon lahayd qabiilka guud ag soo jeedid waxay noqon lahaa qof empathigiisu xoogaa oo more advanced yaha noqon lahaa qof xoogaa dareenkiisu marka la contextiga Soomaaliya waxaa aniga dareenkeyga wax dareen wadaag laha oo kale deegaankaas guud iyo qabiilkaygu degan yihiin laakiin dhibaatada Soomaaliya jirta waxaa weeyaan dhibaatada jirta waxay tahay in qabiilkii uu dhex isdagaalamayo oo sheeyihii sokeeyuhu mar walba sarrifmayo marka empathigaagu mar walba meel kuma istaagi karo waxaa laga yaabaa qolada shalay alla arxamaysay inaad berish ku dhacdaan oo iyagana isku sii dhacdaan oo marka ay noqoto markan clan conflict dhaawac weyn buu gaarsiiyey oo joogtada ah arrinta kale oo aad sheegtay warbaahinta waxbarashada qaabka loo barbaariyey dadka qayb ka mid ahayd oo waxa weeyaan dee markaa barbaartay dee qofkii ku barbaaray deegaan ay ka jirto cabasho iyo ay ka jirto dhibaataa nagu dhacday deegaanadiina dhibaataa gaartay waxaa dhowta ku adkaanaysa qofka markuu barbaaro oo iskoolaadkaas oo kale ka baxo deegaankaas ku barbaaro inuu dadka kale oo dhibaatada looga sheegay uu la arxamo ama uu dareen wadaag la noqdo ayaa lafteeda imaanaysa marka social mediaha oo anaga hadda last 10 years u dambeeyey oo cajiibka waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah laba arrinba wuu sameeyey social media Soomaalida markaa fiirisid qaabka cilmiga bulshada marka loo eego mid waxa weeyaan in dhibaatadii in la faafiyo oo lagu wiirsado oo la daawado inuu ka dhigay wax caadiya normalization inuu ka dhigay fahamtay in maarkan dhibaata dhacaysa dhibaataas la faafinaya likes iyo wax lagu raadinaya maaragtay dad badan marka waxa marka victimkii qofka bini'aadanimada meesha ka baxday waxay noqotay marka content eclipse isku bedeleen dhibaatadii markan wax la daawado midda kale waxa weeyaan oo Soomaaliya ka fiirso waxyaalaha cajiib waxa ka mid ah in dad badan ay ku raadiyeen likes ay ku raadiyeen daawasho arxamid social media la xiriirta tusaale qof baa wuxuu tagaa meel dad dhibaataysan uu duubayaa markuu duubo wuxuu leeyahay dadkii kale wala hadlay wuxuu leeyahay qofka loo soo gurmado marka dad badan ku gurmanaya social media marka labada dhinac buu keenay labada dhibaatada xafiyo dad badan dhibaataysan in loogu gurmado oo maarka laftirkeeda dad badan oo arki lahayn oo kale in loo waxaad xasuusisay waxaad xasuusay qodob muhiim ah markii aad soo hadal qaaday kalsooni darrada ama kala shakiga waxaa soo baxday inahan dambe dhowrkii sannadood u dambeeyey dagaalada qabiilaysan ama siyaasadaysan ama sidii kale ay ku yimaadeen bas ee Soomaalida dhex mara oo dabcan ka mid ah waxaan ku daraa un dagaalka sokeeye Soomaalida weli aan dhammaan oo daba dheer marka waxaa jira erey soo baxay oo ah tiin gobonimo ama qofkaas waa gob lagama wado wanaag waxaa laga wadaa reerkiisa mooyaane reeraha kale u arxama okay waxaan marka qaab lagu ceebeeyo kale qofka lagu ceebeeyo marka tusaale ahaan qof baa Cabdilaahi baa soo qoraya Cabdilaahi oo kasoo jeeda degmada xa ayaa wuxuu soo qorayaa degmada ya ee dagaalku ka socdo dhibaatada lagu hayo ee ay degmadeyda xa ku hayso ha ka dayso marka dadkii degmada xa joogay waxay u soo wada qorayaan dhaliilsanaa maaha dadkii taageersanaa in dhibaatada la joojiyo laakiin dadkii hadalkiisa dhaliilsanaa waxay u soo qorayaan ha waa ninkii gobta ahaa marka waxay ku jirtaa quotation ama kolmay ku jirtaa ereygaas iyo waa waxyaabaha muujinaya maarta in la caadiyeynayo adooda in rabo in la isku abaal mariyo xumaanta haddaad xumaanta ka qayb qaadato ama aad diidi weydo ugu yaraan waxaad tahay qof fiican haddaad tahay wanaagga iyo gobonimada aad dhiirigeliso oo aad taahdid wargardarrada ka daaya halkaas ama gardarrada aanu taageeri maayo dadka inay abuurayso taasi waxaan ku xiri karnaa marka qofka yar korayo marka xalkeen u soo dhawaanaynaa 10 daqiiqo inoo haray marka ilmaha yar korayo waxaan naqaanaa uu kacaa uu kufaa uu ooyaa oo intaas wax ka bartaa markuu xanuunsado iyo dareemaa in la xanuunsan karayo dadna cid kale xanuunsatay buu la ilmeeyaa hadduu arko ilmo yar oo ooyo uu ku daraa inagana waxaad mooddaa inay kala xiranto ka hadli mayno qofku marka uu noqdo uu axgabo ama maaragtay gasariiro ama psychological numbness maaragtay taa ka hadli mayno waayo taas sidii aan maalintii ka sheekaysanay waxa weeyaan aniga tay ugu dhacdana dareemi maayo ta kugu dhacdana dareemi maayo taasi waa xaalad kale oo gaar ah laakiin tan ka hadlayna waxa weeyaan tay ugu dhacdo kaliya dareemaya marka waa selective waa u eegid akhlaaq ahaan waxaad mooddaa in qofku u eegayo wacyi cidan ay ku dhacday goormay dhacday anigu miyaan igu soo noqonaya haddaan qirto nacabka miyaan tolka ama dalka nacabka uu lugta u qabanaya mise
iyo wax la halmaana iyo qof ka fikiraya. Marka toroomadii dhacday iyo dagaaladii sokeeye iyo ilaa hadda socda meelo badan oo Soomaalida ah iyo siyaasadda la isku maran yahay weli aan la kala bixin iyo busaaradda iyo waxyaabahaasi way abuuri karaan. Haddaba Cabdilaahi, arxanka ama empathy waxaan nidhi waa la baran karaa, waxna waa la isku barbaarin karaa. Bulsho ahaanna qof ahaan markay tahayna way nagu adkaatay oo internetku wuxuu abuuray two dimensional wax la yidhaahdo. Waa markaad internetka qoraal soo qortaan qoraalkaa ku celinayo wejigaaga ma arko inaad kaftamayso ma dareemayo inaad wixii kugu hareereysnaa ma garan karo inaad serious tahay inaad ooyeysid inaad faraxsan tahay ma garan karo. Marka sidee baa aynu u baran karnaa ama aynu u kobcin karnaa arxanka si aynu qof ahaan iyo bulsho ahaanba. good question dabcan waxaan horta ku bilaabaya waxaa markay noqoto Soomaalideena markay noqo annaga dhexdeena waxa kulley intaan la baranin ama aan laga hadlin empathy ama collective laga hadlin midda guud ee society marka la fiiriyo horta kow waa in la helaa dib u heshiisiin dhab ah markana haddaan dib u heshiisiin la helin oo waqti badan la gelin dib u heshiisiinta weliba not only dagaaladii bilowday xilliga dowladnimada casriga ah dagaaladii socday qarniyo socday Soomaalida muddo dheer ku soo jireen traumada oo intergenerational trauma wax la jira taa haddii la helo waxaa hadhowti ballaaranaya sida daadan aan sheegnay empathy waxaan waa social construct inta badan intaan la gaarin dareenka shakhsiga ah waxa way annagii ayaga in la yareeyo oo annaga la badiyo oo wiil markay noqoto mid guud oo Soomaalida ka dhaxaysa xasiltan waxay keenaysaa empathy inuu fududaado ama marada inta isku damqashada ama arxanka ama isku marka isku gargaarid ay ficnaato hadaa taan la helin oo dagaalada sii socdaan saasha dagaalada wali way socdaan way adkaanaysaa in la dhiso maaragtay oo runtii aad loo dhiso si walba iskugu dayday dagaalkii baa socda waxaa socda dhaawacii baa socda damqashadii baa socda waxaa socda gocashadii baa jirta marka waxba lagama qaban karo marka haddii taa la helo waxaa imaanaysa marka in mujtamaca institutionskiisa waxaa la yidhaahdaa nin baad kor jaamacadan soo xasuusta macallin noo ahaayo ma arkin wuxuu yidhaahdaa bini'aadamku intiisa badan waa fiican yahay oo dad fiican bini'aadamku wuxuu u arkin laakiin waxaa jira dad ayana aan lahayn waxaa jira kulli dabcan waqtina ma hayno laakiin dad waxaa jira psychopath ah ama sociopath ah dareenkaas lahayn oo inay dadku warxama dadka dhibaateeya ku raaxaysta dhibaatadooda waxa laga yaabaa si badan noocaas yihiin oo laga yaabo in dan kale ku damqanayno kale marka laba institution baa loo baahan yahay markaas laba institution waxa mid wuxuu yiraahdaa waa institutionka waxbarashada dadka caadiga ah in lagu barbaariyo institutionkaas oo runtii institutionkaas marka wax lagu baro ilaa levelka ugu hooseeya waxbarasho ilaa mid ugu sarreysa qofka markuu wax barto wax akhriyo saa sheegtay noveliska akhriyo wax daawado waxa abuurmaya ballaaranaya dareenkiisa guud ee bini'aadamka markano wuxuu ku iman karaa education ku iman karaa midna wuxuu yiri macalinkaas waxaan haystaa macallin sociology noo dhigayo cilmiga bulshada noo dhigayo sociology wuxuu yiri waxaa jira qayb kale ayana u baahan in institution kale xabsiga la geliyo oo mujtamaca laga xiro oo dhibaatada maar dadka ka wada oo shuruuc loo samaysto nafa labadaas institution horta waa laba institution hadda aad marka mujtamac uu heshiiyo labadaas aad baa loogu baahan yahay marka in dadna waxbarashadii aad lagu barbaariyo qolana waxaa jirta waxbarashada ku ogaanaysa ilmaha markii yaryihiin baa arkaysa inuu yahay qof dhibaato wada dadka dambiilayaasha oo kale dadka dhibaateeya qolana in marka labadiiba Soomaali inay ka maqan yihiin moodaa dowlad weyn oo xoog leh oo labadaas institution runtii marka la bulshada haddaan usoo laabno siin doonaa shan daqiiqo kulle noo harsan iyo dhinaca familiga laftirkiisa ilmaha maaragtay in la baro weli marka see lagu bari karaa waa ilmaha waxaa lagu bari karaa ilmaha markii wax weyn lagu bari karo ilmaha waxaa weeya in la weydiiyo dareenkooda inay ka hadlaan see dareemaysaa maxaa kugu dhac qofka marka uu dareenkiisa in badan ka hadlo numbness wuu ka baxaya macnaa dareenka marka ilmaha la baro language ku xiriira dareenka maarkino marka inta haddii isku helo dib u heshiisiinta labada institution usoo dhacay markaan wada hadlaynay iyo familiga iyo ilmaha si gaara loo baro akhriska oo kale maarkino dareenkooda inay cabiraan oo kale iyo dadkaas sociopathka iyo psychopathka laga ilaaliyo hogaaminta iyo maarkino siyaasadda laga ilaaliyo kolle intaas la karaa waa kuu soo waad mahadsan tahay qodobada intii muhiimsan waa taabatay warbaahinta ayaan ku dari lahaa oo dabcan horta mid baan rabaa inaan hoosta ka xariiqno oo hadalkan kuma dhama discussionka ama mawduucan wayna ubaxran hadban inaad uga sii sheekaysano laakiin markaynu leenahay marka dib u heshiisiin ama dhab u heshiisiin in la helo dadka Soomaalidu ay iyagoo deegaan iyo si guud in arrimihii dhacay laga sheekaysto ilaa weligii soo dhacay ilaa haddana socda oo si dhaba looga sheekaysto cidi u aanowdo oo ama la iscafiyo ama la isxukumo marka bal si dhaba arrinta looga hadlo taas waa qodob ta kale waxa weeyaan wacyigelinta ama maaragtay warbaahinta
inta dee taa looma xanibnaanayo inta soomaalidu ay siyaasad ahaan isu imanayso oo ay sheekaysanayso. laakiin inta ka horeysa waxaa la samayn karaa baan isleeyahay eh, si qof qof ah iyadoo la iskaashanayo dabcan ayaa waxaa la samayn karaa in qofku xil baa ku saaran qof kasta oo Soomaaliya oo dhacdo xun arkaa yaan u eegin wax kale oo aan ahayn inay xun tahay wuxuu ma xun tahay mise ma xuma ma khalad baa mise waa sax akhlaaqda miisaankeeda ha noqoto taa ha noqoto ma sax baa mise waa khalad ayay ku dhacday yaa sameeyey muhiim yaan inoo noqon lambar laba eh, ta kale waxa weeyaan markaad aragto dadka baraha bulshada ku macaasha inay dadka ka xanaajiyaan ama maaragtay ama ay xumaanta faafiyaan ama ay arxandarrada faafiyaan ama muuqaalada eh, naftaada adoo u turaya cid kaleba iska daa adoo naftaada u turaya ha daawanin muuqaal Telegram soo dhigay ama marka la soo dhigayo arxandarra ah ama qof dhiigaya ama wax la halmaala waayo si kastoo isaga dhigayso qof adag waa wax kaa go'an markay u yar tahay qofku inuu naftiisa ilaaliyo oo bal iska ilaaliyo muuqaalada xun iyo maaragtay tamarta tabana ee dhex taalla baraha bulshada oo si togan u isticmaalo oo qofka khaldan iyo ka saxan uu ku garan karo keliya ficilka marka waxyaabaha heerka shakhsiga ah oo qoysku aad iyo aad muhiim uga yahay ubadka waa in la baro akhriska waa in la baro arxanka waa in la baro maxaa la yidhahdaa inay horta hadli karaan saad sheegtay markay hadlaanna oo aan afka lagaga soo boodin sidoo kalena xilli horeba bal lagu baraarujiyo in waalidku ay ogaadaan muhiimadda ay leedahay qofka yare hadduu fahmi karo dareenka bisadda oo aanu bisadda biyo kula ku shubayn ama aanu beerka ka laadaynin ama aanu eega dhagaxinaynin eega xaafadda jooga aanu dhagax u qaadanayn hadduu intaan fahmo qof inuu waxyeelaa way adkaan doontaa inuu qof wax la yeelayo daawado ama uu ka aamusaa way adkaan doontaa marka haddaynu ku guulaysano ilmaha yar inaanu eyga dhagax ku dhufan waxaan isleeyahay umad ahaan mustaqbal baynu leenahay intaas Absolutely. kaga aad iyo baxaysaa aad si fiican baa usoo gabagabaysay dabcan saa sheegtay discussion kooban buu ahaa wada sheekaysi kooban waxaan rajeynaya su-aalo badan inuu dhaliyo waxaan rajeynaya inuu dhaliyo awareness dad badan su-aal iska weydiiyaan mawaadiic badan laga qabto waxaan kusoo dari lahaa runtii ereyga social media aa sheegtay waxyaalaha ku muujinaya soomaalida meesha ka gaartay arxaan la-aanta waxaa kamid a sheekada hadda la yidhaahdo kale soomaalida aad ku faafiso not only dagaalada iyo dhac iyo dhiigga keliya lama faafiyo social media waxaa la faafiya waxyaas qarxin hebel la soo qarxiyey maanaa dad gabar qof la dhibaateynayo qof privacygiisii oo qof kale la wadaago kale oo privacy u ahaa in dadka ay ku raaxaystaan aad loo faafiyo waxyaalaha waxaa soomaalida hadda aad ugu soo baatay marka social media wuxuu u baahan yahay wacyigelin badan buu u baahan yahay dhinacan maaragta dadka waxaa sameeya oo social media soo gala oo waxaa ka macaashana maybe inay yihiin laftirkooda dad we don't know exactly but laakiin inay ka mid yihiin dad psychopath ah oo aan dareenka dadka aan dan ka lahayn oo kale marka in waad loo sameeyo la abaalcelin loo laga dhigin dad maaragtay la daawado kale saa sheegtay aan la daawanin waxaa kale jira maxkamado waxaa jira social media kale soo saar qofkii la maxkamadeynayo la tooganayo laftigeeda dadka u daawadaan dad badan oo wariyaal waaweyn baa jiro followers badan leh marka waxaas in laga hadlo qeybay waxay ka mid noqon kartaa xalka ka mid noqon kartaa dabcan waan soo gabagabaynaynaa waxaan rajeynayaa in mawduucan uu su-aalo badan dhaliyo dabcan marka daqiiqada ugu dambeeyay 2 daqiiqad baan ku siinayaa si aad nagu soo xirtid maarata aad baana kaa mahad daqiiqadun baynu haysanaa marka waxaan kusoo xidhi lahaa sidaan sheegnay arxanka waa la baran karaa wuuna baabi'i karaa sida waxyaabaha kale ee aqoonta loo baran karo farsamada kale loo baran karo waana farsamo sida Soomaalida oran jirteen farsamo waa fara ku hayn haddii la koriyo oo gacanta lagu hayona wuu weynaan karaa waxyaabaha lagu korin karo waxaa kamid ah in la caadiyeeyo in dadku ay sida ay u dhibaatoon karaan marka ay u baahan yihiin inay fariistaan oo ay la sheekaystaan cid khibrad u leh ama aqoon u leh inta xalka weyn imanayaan qof kastooba dhibaatada intaad ka qayb noqon lahayd waxaa habboon inaad for your own sake adiga dartaa cid kaleba ka fakiro in aad wanaag ka qayb aad baad u mahadsantahay cabdillahi soo gabagabaynaynaa marka taas intuusan maaragta nagu xirin programka marka aad baa u mahadsan tahay cabdicasiis thank you so much okay bye bye aad baad u mahadsantahay